warar qarsoodi ah ayaa waxay tibaaxayaan in taliskii ciidamada militariga Mareykanka iyo Pentagonku ay go'aan ku gaareen in si dhaqso ah loogu diyaar garoobo in loogu guuro dalka Soomaaliya waxaana hadda afka lagu hayaa 3 goobood in Mareykanku isticmaalo sida garoonka Barridoogle degmada Qow iyo madaarka iyo dekedda magaalada Berbera arrinkan ayaa yimid kadib markii dowladda Shiinuhu ay saldhig ka furatay goob ku agdhow taliskii Limoniye ee ciidamada Mareykanka iyadoo Shiinuhu uu la yimid qalabka laserka iyo waliba qalabka waxbasaasa oo khalkhal weyn ku riday ciidamada Mareykanka oo ka cabsi qaba in Shiinuhu uu basaaso qalabkooda casriga ah ee istaraatiijiga ah dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha ayaa loolan adag ugu jira marin badeedka baabalmandab ee badda cas oo iskaga gooshaan maraakiibta ugu badan dunida oo ayna maraan xargaha isgaarsiinta ee internetka ee ugu fara badan dunida Mareykanka ayaa hadda Soomaaliya u soo diray safiirkiisii Yamamoto si uu heshiisyo ula galo dalka Soomaaliya waxaase arrinka jira uu yahay in Mareykanku isagu halhays u leeyahay godbalees America ama Mareykanka ilaahay ha barakeeyo dinida inteeda kalena nasiibkeeda waana halhays xaasidnimo iyadoo Mareykanku uusan saaxiibto joogta uusan lahayn ee uu leeyahay kaliya dana joogta dalka Soomaaliya ayaa hadda waxa uu galay jawi cusub iyo siyaasad cusub oo halisteeda leh